asalaamu calaykum khiyaartana dhegaysanaysaay kulanti wanaagsan dhammaantiinba ku soo dhowaada waa mar kale iyo barnaamijkii aan uga hadlaynay qodobada la xiriira qabiil qoraalka dastuurka dalka soomaaliya waa barnaamijkii 12aad waxaan idinla socodsiinaya anigoo ah ayaanle xuseen cabdi barnaamijkeenna dhegaystayaal waxaad ku maqli doontaan habraaca federaleynta soomaaliya federaalka marka la soo qaado inaynu xoogaa kala boodno baa moodaa war federaalku ma aha waxayna kala kaxaynaya waxa isku keendhaweynaya weeye oo isku soo keendhaweynaya dee haddii gobolka statekaas uu yahay state aan lahayn resource uu ku istaagi karo in la caawiyo ku qasbanaanayo canshuurta dalka laakiin asaga laftigiisaas lagu fiirsamaye waa in develop loo sameeyaa la maalgeliyaa bal marka hore dhegaystayaal aan idiin guud marno qodobada ku jira dastuurka ee tilmaamaya ama ka hadlaya federaalka. qodobka koowaad jamhuuriyadda federaalka soomaaliya farqadiisa koowaad soomaaliya waa jamhuuriyad federaal ah leh gobonnimo dimuqraadi ah oo ku dhisan matilaada dadweynaha loo dhan yahay oo ku salaysan nidaamka asxaabta badan iyo cadaalad bulshadeed. qodobka saddexaad farqadiisa koowaad mabaadida aasaasiga ee jamhuuriyadda federaalka soomaaliya waxay ku dhisan tahay mabaadida aasaasiga ah ee awood qaybsiga nidaamka federaalka. qodobka 49aad qaabdhismeedka dowladda farqadiisa koowaad qaabdhismeedka dowladda federaalka wuxuu ka kooban yahay 2 heer dowladeed: a heerka dowladda federaalka, b heerka dowladda xubinta ka ah dowladda federaalka oo ay hoos imaanayaan dowladaha deegaanka. farqada 2 gobol gooni isu taagi karaa ma jiri karo inta uu gobol kale ku biiraayo. dowladda federaalka soomaaliya ayaa maamulaysa waxaana waajib ku ah gobolkaas inuu ku biiro gobol kale ama dowlad xubin ka ah dowladda federaalka ah muddo 2 sano gudahood. qodobka 50aad tirada iyo xuduudaha dowladaha xubinta ka ah dowladda federaalka iyo degmooyinka. farqada koowaad tirada iyo xuduudaha dowladaha xubinta ka ah dowladda federaalka cusub waxaa go'aaminaya golaha shacabka. farqada 2 golaha shacabku inta aanu goyn tirada iyo xuduudaha dowladaha xubinta ka ah dowladda federaalka wuxuu magacaabayaa guddi heer qaran ah oo daraasad ka sameeya warbixin ay la socdaan talooyinna u bandhiga golaha shacbiga. farqada 3 magacaabidda guddiga waa inuu ka horeeyaa sharci golaha shacabku ansixiyo oo qeexaya a xilalka iyo awoodaha guddiga, b halbeegyada uu cuskanayo samaynta dowladaha xubinta ka ah dowladda federaalka iyo shuruudaha qayb dalka ka mid ihi mutaysan karto inay noqoto dowladaha xubinta ka ah dowladda federaalka, a tirada xubnaha, shuruudaha xubnimada iyo siyaabaha lagu magacaabayo xubnaha guddiga, da muddada xilhayntooda ee xuquuqdooda. farqada 4 tirada iyo xuduudaha degmooyinka dowladaha xubinta ka ah dowladda federaalka waxaa goynaya sharci uu soo saaro baarlamaanka dowladaha xubinta ka ah dowladda federaalka golaha shacabkuna uu ogolaado. farqada 5 xuduudaha dowladaha xubinta ka ah dowladda federaalyadu waxay ku salaysnaan doonaan xuduudihii gobolada ee jiray 1990kii. farqada 6 ugu yaraan 2 gobol iyo ka badan ayaa ku midoobi kara dowladaha xubinta ka ah dowladda federaalka iyagoo xor u ah go'aankooda.
waa tahay dhegaystayaal waxaad dhegaysateen qodobada dastuuriga ah ee ka hadlaya federaalka. haddaba barnaamijkan waxaa igala qaybgalaya doctor cabdinuur cilmi qaaje oo ah siyaasi soomaaliyeed iyo cabdiraxmaan cabdi gaas oo ah sharciyaqaan. waxaan ugu horeyn doctor cabdinuur qaaje weydiinayaa sida u arko habraaca federaaleynta soomaaliya. bismillahi raxmaan raxiim. arrinta iyada ahoo dastuuriga ah anugu haddeerto aragtidayda haddii aan ka dhiibta waxaan ka hormarinayaa intaanan dhiiban soomaalidu horta waxa weeye dad walaalaah, waa isku diir, waa isku diin, waa isku dal, waa isku af. marka waxa weeye xaqiiqdu sida ay tahay sidii waagii hore wax ka fiican la keeni maayo. soomaalidu waa isdhexgashay, way wada saaxiibtay, qabyaalad bay ka kaaftoomeen, way iswada guursadeen, yacni way iswada barteen. soomaalidii waagii hore haddii la helayo horta wax loo dhigo ma jirto. laakiin haddii dhibaato ay dhacday oo civil war uu dhacay oo laga faa'iidaystay dadka inta wax magaratada ah ama inta magaranaysaa danaystayaalka laga faa'iidaystay oo ay dadkii isku direen oo isdileen oo la kala tegey, dabcan xalka ugu horreeya waxa weeye warbal horta charity begins baa ingiriisu ku maaha charity begins at home. warbal horta aynu soo abuurno guryaheenna oo aynu ka abuurno wada joog ku dhisan nabadgelyo iyo wada socod. marka waxa weeye arrinta iyadaa federaalismka ah oo soomaaliya maanta inkastoo laynoo laqimay oo laynoo yeeriyey, haddana waxaa keenay duruuftaasaa keentay laysdilay. marka waxa weeye in qolo waliba gudaheeda ay iska soo maamusho oo ay iyaga oo maamulan oo mid keliya ah ay soomaalida kale u yimaadaan, xamar iyo federaalkuna uu ka dhexeeyo iyo dowladda dhexe, waa raacsanahay, waana soo dhowaynaya. innagoo ku jirna arrintan aan ka hadlayno ee ah federaalka, adiga ka aragti ahaan habraaca federaaleynta sida loo qorsheeyey in loo raaco sideed u aragti? aniga wallaahi waxaan u arkaa arrintaas arrin oo runtii culays ah, laakiin dulqaad u baahan oo in laga fakero u baahan. haddii federaal dadkii lagu qasbay, anugu waxaan jeclaan lahaa intii sidii awalba loo wada deganaan jiray oo gobolladu isugu xirnaayeen in isugu xirmaan, oo wixii isla degi jiray oo hal gobol ah oo qabiil kasta leh ayagoo federaal ah ay dowlad dhexe ka wadarsanaadaan, si dowladdii dhexena ay awood u hesho oo dowladda dhexena aysan dhihin reer hebel baa federaal ah, reer hebel baa federaalka aan ka mid ahayn loo dhihinin. waxaan jeclaan lahaa in macnaha wixii isqaadan kara qabaa'ilada kala duwan, wixii wada dhalasho ka dhexayso waa gooni, laakiin inta isqaadan karto inay isqaataan oo ay dastuur samaystaan oo meel fadhiistaan oo nidaam samaystaan, kadibna ayagoo federaalkooda oo u habaysan yahay, iyagoo kala qabiil ah laakiin muslimnimadii iyo soomaalinimadii ka dhexayso, inay dowladda federaalka ah wada shaqayn buuxda ay la samaystaan. taasaan jeclaan lahaa aniga. waayahay, laakiin aragti ahaan marka la eego dadka soomaalida ah waa dad ehel ah oo xigaala ah oo walaalo ah, laakiin maanta duruuf baa keentay in federaal la qaato. federaalka la qaadanayo adoo fasiraya, maxaa dadka soomaalida u sheegi lahayd si ay u fahmaan waxa uu yahay federaalka soomaaliya la doonayo inuu ka hirgalo? bismillahi raxmaan raxiim. horta federaalka soomaalida qaar baa ka diday. horta federaalka in laga dido maaha. federaalku macnihiisu maaha waa la kala tegey. horaan u sheegay sidii hore oo soomaalinimada ahayd haddii la waayey, si loo helo soomaalinimadii saxa ahayd waa inuu reer waliba isagoo maamulan oo mid ah oo keligiisa waa inuu u yimaadaa federaalka. in la kala tegeyna macnaheedu maaha. waxa weeye 6 state bay noqonayaan ugu badnaan marka si fiican loo eego, waayo 18 gobol baynu ahayn. 2 gobol iyo wixii ka badan ayaa israaci kara oo noqon kara state. marka markay u bataan kulligood waxay noqonayaan ama 6 ama 7 state. intaasuna in heshiin weyday maaha. waxaa example laga qaadan karaa imaaraadka oo kale waa 7 state weeye. haddana waxa weeye dowladda dhexaa ka dhaxaysa. marka waxa weeye dowladda dhexe oo la dhisayo haddii state waliba uu ka muuqdo, baarlamaankii ka muuqdo, golihii fulinta oo ah golihii xukuumadda uu ka muuqdo, awood qaybsigii saxa ahaa oo looga baahnaa wasaaradaha iyo dowladnimo, marka state waliba uu ka muuqdo, anigu waxay la tahay
arrintaasu inay tahay arrintii la doonayey inaan la kala tegin bay macnaynaysaa aakhirutaankana soomaalinimadii saxa ahayd wararta maxayna kala qoqobay xadkani waa maxay miynaan soomaali ahayn soo maynaan heshiin taasaa iman doonta aakhirutaanka laakiin tanu waa lagu sii moodayaa ma garatay dee waa sida aragtidaada marka is leedahay waxyaabaha lagu heshiiyey oo la leeyahay habraaca federaaleynta soomaaliya sidan iyo sidan ha loo raaco suuragal ma tahay arrintaas de haddii sidii tahay loo qaato suuragal way tahay haddii sidii loo diyaariyey oo ummadda aqoon-yahaniinta iyo dadka maaragtay dastuurka diyaariyey siday tahay u soo diyaariyeen haddii dadka u qaataan iska keenin maaragtay muran ka keenin waa arrin lagu socon karo laguna gaari karo midnimo soomaaliyeed waayo yaa laga doonayaa marka inay hirgeliyaan habraacan federaaleynta oo ay deegaan walba iyo tuulo walba oo ka mida dhulka ay markaa federaalku ka jiro ay ka hirgeliyaan yaa laga doonayaa mudan cabdinuur dabcan dowladdaa laga doonaya dowladda dhexe baa laga doonayaa dowladda dhexe waa inay karti leedahay waa inay leedahay hufnaan leedahay waa inay dalka ku ballaadhisaa xukunka isaga ah oo federaalismka oo walaalnimada ah oo iyagu ay u yihiin central governmentkii markaa tuulo kastoo ay noqoto state walba tuulo walba magaalo madax kulli waa inay mushtarik ay ka noqdaan arrimaha bulshada oo dhan waa inay dhisaan amniga waa inay dhisaan qolo walba meeshooda waa in ma garanaysaa maaragtay ay ku ogaadaan dowladaha federaalka ahina iyaga oo tix raacaya oo raacaya amarka dowladda dhexe waa inay qaataan oo hawshooda ay maamushaan state waliba isagoo state institutionkiisii oo dhan uu dhisan yahay ama amni ha noqoto arrimo bulsho ha noqoto siyaasad ha noqoto waayo siyaasadda waxaa u haya dowladda dhexa u haysa oo ku hagaysa iyana waa inay raacaan khayraadka matalan ku jira dalkaas oo kale shuruuc buu leeyahay waa in dowladda federaalka iyo dowladda kale oo waxaan u jeedaa central government dowladda dhexe iyo dowladaha federaalka ah oo yaryar waa inay ka wada hadlaan cadka gaarka ay u leeyihiin meesha khayraadkaasi uu ku jiro dada ku noolna waa inay gaar u leeyihiin iyaguna wax isku khaldan maaha sharciguna taa waa bayaan buu ka dhigayaa marka sidaa weeye arrintu haddaan waxaa la leeyahay deegaan kasta oo ka mida jamhuuriyadda soomaaliya waa inuu helaa adeegyo iyo waxqabad xukuumadeed oo isku dhigma arrintaas sida aragta deegaan kasta oo soomaaliyeed waa inuu helaa waxqabad iyo adeegyo isu dhigma taas de waa muhiim waa arrinta ugu muhiimsan waayaba sababtaa waxaa weeye deegaamada qaar baa dhaqaalo leh qaarna dhaqaalo ma leh kuwii dhaqaalaha leh haddii dhaqaalahooda ayago keligooda ku ekaado kuwii aan dhaqaalahan jamhuuriyadda ka tirsanaa way baaba'ayaan saa laaligeeda waa in loo qaybiyaa wasaaradda qorsheynta qaybisaa oo dalka oo maaragtay sidii maaragtay balance looga dhigaa oo lasleekeysiiyaa because waxaa waaye dadku ma sinaan karo marka saa laaligeeda waa in dowladda dhexe ay barnaamijkaas si buuxda uga fikirtaa dhaqaalaha gobollada uu sarreeyo iyo kuwa dhaqaalahoodu hooseeyo laisku beesgareeyaa waaya iyadoo habraaca federaaleynta laga hadlayo waxaa laga yaabaa deegaanada isku dhaqaalo maaha sida uu sheegay walaalkay waa kala duwan yihiin waa kala dhaqaale badan yihiin gobolba waxbuu ku fiican yahay oo laga yaabaa ka kale inuu uga faa'idaysan karo mid baa laga yaabaa inuu shidaal yeesho midna inuu beerihii yeesho iyo qudaartii marka waxaasoo dhan marka la isku eego haddana kama marna meeshii inuu jiro maamul hoose oo go'aanka ugu weyn ay leeyihiin dadka deegaankaas iyo maamulka ka jira marka ma laga yaabaa in dadka deegaanka degan mararka qaar ay dhici karto inay yidhaahdaan gobol hebel annaga waxaan haddaan siinayno waa inaan ama amaah ku siinaa ama aan deeq ku siinaa taa ma dhici kartaa wax waliba nidaam bay leeyihiin waxaynu ka hadlaynaana waa dowlad federaalah oo ka kooban states yaryar waxaynu ka hadlaynaana waa khayraadka dhexdooda ku jira matal baan ku siinayaa emiratesku waxa weeye saan sheegay waa 7 imaaradood waa 7 imaaradood waynu ogdhahdo waxaa laga masruufaa 4 baa waxay leeyihiin dakhli leh 2 sii dakhli badan oo waa Dubai iyo Abu Dhabi imaarat Abu Dhabi iyo imaarat Dubai ma garatay 2 laga masruufaa dalka laakiin waxa lagu masruufayaa waa maxay waa sida aad sheegayso stateka isaga ah oo qaniga ama shidaal kale ama maxaan ku dhahdaa beeraha leh ama macdanta kale leh waa inuu yahay state
u bisil walaalihii inuu wax ka siiyo oo uusan qadin isaguna dhirgin qaynuunkuna wuxuu qorayaa dawladda federaalka ah qaybteeda qorshayntu in ay qorshayso khayraadka ka soo baxaya matalan kismaayo oo kale oo beeraha ah ma garatay gobollada dhexe oo ka buuxa uranium iyo macdan nugaal valley oo batrool shidaal ka buuxda yacni waxa weeye meelayowgaas oo dhan qorshay u baahan yihiin qorshahana waxa iska leh waa dawladda dhexe wasaaraddeeda qorshaynta iyo baarlamaanka khayraadka waa la wada leeyahay soomaali waa la wada yahay ma garatay waxaanu iska iman doonaan waxa weeye dooddu haddeerto baynu inagu uun isku daalinaynaa mooye waxaanu hadhowto caadigoodiiba ku noqonayaan kulli shay yarjic ilaa asli iskaashi baa jiri doona u dhexayn doona xukuumadaha gobollada ka jira ee federaalka ah gobol iyo gobol waxaa laga yaabaa laba gobol oo daris ah ama laba gobol aan daris ahayn inay yeelan karaan xiriir toos ah oo iyaga ka dhexeeya taasina waa mid loo madax bannaanaynayo xiriirada tooska ah ay yeelanayaan maamulada gobollada ee deegaanada soomaaliya ka jiri doona marka la fiiriyo in dadka soomaalidu ay xiriir toosa leeyihiin mar walba haddana taa waxaa la rajaynayaa in laga yaabo in inkastoo laba gobol oo kale fog aysan isku biiri karin oo xuduudo aysan wadaagin haddana cilaaqaad oo dawli ah oo u dhexeeyo heer gobol inuu jiro marka taa maxay u taraysaa bay kula tahay arrintaas wax weyn buu taraysaa because waxaa waaye haddii laba gobol oo sida gobolka sool iyo gobolka jubbada hoose oo kale way kala fog yihiin ay samaystaan cilaaqaad arrimo dhaqaale siyaasadeed wax walba way samaysan karaan waayo dawladda dhexe markaas marxay ka ahaan kadhaa markaasito wax la yidhahdo goobjoogun bay ka ahaan kadhaa oo qasab wey markii labada gobol ay heshiiyaan waxay ku heshiiyeen dawladda dhexe in ansixiso waa ku qasbanaanaysaa kuwa deriskaana waxaa weeye dee waa kasii fiican tahayba oo deriska la ah salaaliga wax dhibaato ah oo ka imaanaya siyaasad iyo barnaamij kaloo dhaqaale iyo oo dhibaato ka imaanaya arrintaas uma arko inay dhibaato tahay ma arko barnaamijkan waxaa diyaariyey aamil media limited waxa aad iyo aad u wanaagsan weeye horta waxaan dawladda dhexe marayna ma jiraane laakiin waxa weeye sidaa hadda uu sheegay walaalkay matalan labada state oo kale haddii ay oo kala fog weliba waxay samaysanayaan cilaaqaad aad iyo aad u wanaagsan soomaadan garan waxoodana mushtarig bay ka dhigi karaan waa lagu dayan karaa oo dawladaha kale ama states kalena waa ku dayan karaan oo waa ku soo biiri karaan ama kuwo kale samaysan karaan marka waxa weeye labadii iska daa laba state laba nin oo Soomaaliyeed u heshiiyay anagu waa soo dhaweynaynaa waana wax sax Soomaaliya garan waayahay arrintan marka maadaama Soomaaliya kulli loo wada cararayo madaxweynenimo Soomaaliya laga noqdo ma yaraynaysaa tartankii faraha badnaa ee lagu jiray madaxweynaha qaranka marba haddii gobol kasta awoodii la siinayo oo maaragtay deegaankaas uu noqonayo deegaan maamul leh awood leh ciidan leh wax walba dhisan kara oo maaragtay ka mid ah dhulka Soomaaliya taa ma yaraynaysaa bay kula tahay Cabdiraxmaan arrintaas horto way yaraynaysaa laakiin federaalku hal mid baan ku darsanaya federaalku markii la sameeyo ciidan state kasta loo sameeyo 5 state ama 6 state noqonayaan soo moogid markii ciidan loo sameeyo waa inuu noqdaa ciidan central governmentiga ka amar qaata oo mushaarkiisu ka imaanayo central governmentiga federaalkuna uu sameystaa local police wax la yiraahdo وصل military qaranka dalka difaacayo kale waa inuu dalka mid ahaada barsenbiyo hadda jarmalka kale wuxuu leeyahay federaal haddana ciidankiisu waxa way wadanka dhan waa ka sameeyaa Cabdiraxmaan waxyaalaha Soomaaliya ka dhaxaynaya waxa kamid ah calanka waxa kamid ah dokumentiga baasaboorka waxa kamid ah ciidanka guud gaashaandhiga madaxweynaha oo ka dhaxeeya kamid ah waxaasoo dhan waa wax guud oo ka dhaxaynaya laakiin gobol walba haddana waxa laga yaabaa sida inuu sii yeelanayo ammaankiisa gaarka iyo cidda ka shaqayn lahayd Dr. Cabdinuur adiga ka waran sidoo arkaysa arrinta wallahi si wanaagsan baan u arkaa ma aha wax xun federaalka marka la soo qaado inaynu xoogaa kala boodno baa moodaa war federaalku ma aha waxayna kala kaxaynaya waxa isku keen dhaweynaya weeye oo isku soo keen dhaweynaya dabcan waxa ka dhaxeeya federaalka waa lagu yaqaanaa waa inta hadda uu sheegay wariyuhu
madaxweynaha ugu horeeya wixii dibadda ka imanaya oo dhan waa central governmentka maamulaysa laakiin federaal walba waxbuu ku leeyahay state kasta waxbuu ku leeyahay waxaase muhiima isagu inuu charity begins at home inuu isagu isdhiso oo arrimihiisii bulshada caafimaadkii biyihii maxaan ku idhahdaa tacliintii inuu waxaa isagu ka adkaado amnigii inuu ka adkaado bilayskiisu uu yahay bilays ma garanaysaa maaragtay xoog leh oo amniga sugi kara wix intaa ka badan federaalka iyo madaxda stateka ayaa ka wada hadlaya iyo dowladaha kale oo markaa ku xeeran oo stateska kale oo dhan waa inuu jiraa wax joogta oo la isku og yahay oo ma garanaysaa number 1 taabanaya amniga iyo arrimaha bulshada meelahan marka laga hadlo Soomaaliya waxaad ogtiin 20 sano waxa la isku haysta kursi hal kursi oo qaybsan waayo ah madaxweyne marka haddii deegaan kasta oo gobol kasta federaal awood buuxda la siiyo waxaan federaalka la sheegay waxa weeye in awoodii la baahiyo la qaybiyo oo awoodii urursanayd dadka loo dhiibo la siiyo cid walba awoodeedii ma qayb ma ka noqonaysaa in ay yaraato khilaafkii siyaasiga ahaa ee halka kursi loo wada cararayay deegaanada loo wada ordi doonayo barasaabyada ama madaxweynayaasha gobolada dabcan waa yaraanaysaa sababtu waxa weeye meeshii inta xamar la tago madaxweyne loo wada ordayey hadda waxaa loo wada ordayaa stateka madaxweynihiisa iyo ku-xigeenkiisa imanaya iyo maxaan ku idhahdaa baarlamaankiisa iyo xukuumaddiisa oo wasiiradii ka kooban waxaasaa ma garanaysaa imanaya meesha iskana orod ma aha oo title raadi ee waxa weeye dadka in wax loo qabto dadka wax loo qabto baa muhiima marka waxa weeye in fact way yaraynaysaa laakiin waxa weeye in kastoo aynan weli bislaan oo arrintu sida hadda aynu heerkaynu ka hadlayno keliya ay inoo muuqato haddana dee federaalku wuxuu leeyahay wax ka sarreeya intaa ma garatay yacni heer ka sarreeya intaa ayuu joogaa oo dowlad kasta oo federaalhi waad og tahay maanta iyagaa adduunka ama ugu qanisan ama ugu horumarsan waxay ku horumareenna waa nidaam aynan weli inagu maskaxdeennu ama shacabkeenna maskaxdiisu ayan gaadhin oo iman doona oo soo socda mana xoog yaraanayso marnaba oo ma garanaysaa ma xoog yaraanayso ma itaal daraanayso laga kaaftoomi maayo dowladda dhexe waayo iyadaa la rabdhaa hortiye howl badan baa u taalla marka la eego maamulada federaalka ah oo waxaa laga doonayaa deegaan kasta iyo tuulo kasta iyo qof kasta oo meel jooga inuu helo xuquuqdii asaasigeeda u baahnaa tacliintii biyihii caafimaadkii arrintaa kuma yeelanayo dowladda dhexe wuxuu ku leeyahay dowladda federaalka ah ee uu markaa ku jiro territorialkeeda uu ka mid yahay taa ma kuu muuqataa in maamulada gobolada la doonayo federaal inay noqdaan inay buuxin karaan arrintaasoo ma buuxin karaan xoogna uma hayaan arrintaas ayada ma buuxin karaan laakiin waxay u baahnaan macaawino dibadeed macaawino dibadeedna waxaa usoo keeni karaa dowladda dhexe qasab bay ku ahaanaysaa marka inay dowladda dhexe semberi ku xirnaadaan oo dowladda dhexe ay u soo maraan wax walba oo u baahan yahay iskuulkii iyo institutiontigii dalka lagu dhisi lahaa o dhan ha ahaato wadooyin ha ahaato caafimaad ha ahaato iskuul ha ahaato biyo ha ahaato layr everythings marka saa laaligeeda waxaa waaye awooddaas ma kabargarayn karaan laakiin waxay u kabargarayn karaan oo keliya isku duubni iyo ayaga oo corruption iska ilaaliya iyo wixii ka dhimanaado oo dowladda dhexe ugu soo dartay beesha caalamka waaya doctor cabdinuur aan weydiinayaa awoodda saaran mas-uuliyadda federaalka saaran ma gaarsiin karaan dadka oo dhan inay baahidooda daboolaan anigu ra'yigayga waa maya ra'yigayga waa maya waxa weeye ninku waxa uu isagu qabsado geedka uu beerto ama beerta uu fashuu cunaa miraheeda soomaada garan waa seexanayaa ilaahu guursan maayo wiilisi ilaahay waa awoodaa laakiin ma yeelo war shaqaysan maayo state dhan baan nahay oo shaqaysan maayo oo arrimihii bulshada ka shaqayn maayo oo amniga ka shaqayn maayo oo dowladda dhexaan wax ka sugaya ma soconayso waa in gobol walba Soomaaliya waynu naqaanaa khayraad buu leeyahay u gaara mid bishidaal leh mid uranium leh mid beera leh mid macdan kale leh mid wax waliba ma garanaysaa mid waliba wax buu qani ku yahay mid waliba wixiisu ku filan haddii aynu runta ma garanaysaa sheegayno xataa dowladda dhexe uma baahna haddii la dhiso stateska laba gobol iyo wixii ka badan oo israaca qoli waliba haddii meesheedii dhisato oo federaal ayaan isku hadlaynin oo ayaan waxba ka sugin waa sida loo baahan yahay ma garatay markaa saasaanay federaalku muhiim
weyn ugu ahayn xagga wax soo saarka waa in state walba iyo dadkiisa uu shaqaystaa levelka laga doonayana uu gaadhsiiyaa ummaddiisa nabadgelyo ahaan iyo horumar ahaan waayahay marka ciddii state sheegatay ama federaal oo dastuurin loo aqoonsaday oo laga yaabo iyadoo federaal ah mar walba in lagu qasban yahay in wax la taro oo mar walba dowladda dhexe wax looga raadiyo mar walba gobollo kale wax looga soo baryo oo federaal ahaan ay u taagnaato taasoo kale ma caqabad baa mase waxaa soo kordhay wey waxaan weydiina cabdiraxmaan dee haddii gobolka statekaas uu yahay state aan lahayn resource uu ku istaagi karo in la caawiyo ku qasbanaanayo canshuurta dalka qayb laga siiyo oo maalgelin lagu sameeyo laakiin asaga laftigiisaas lagu fiirsamaye waa in develop loo sameeyaa la maalgeliyaa oo haddii wax kale loo fiiriyo barsembiyo haddii uusan beera lahayn macdana lahayn waa in resource kale loo raadiyaa oo uu ku fiican yahay dadkiisana loo haysa oo shaqo loo abuuraa dadkiisa saas wey sidee arrintaa loo xalinayaa doctor cabdinuur arrintaa hadda uu ka jawaayo cabdiraxmaan the same thing isku ra'yi baanu nahay ma garatay waxaa weeye stateki hadduu qaawan yahay oo uusan wax resourcesa lahayn walaaluu leeyahay walaalahaas waxay u abuurayaan exactly dadkiisa shaqay u abuurayaan iyaguna stateskooda dadkaas waxay ka siin karaan shaqo ma garatay maalgelin baa lagu samaynayaa hadda waxaan kaaga soo qaadayaa dowladda la yidhaahdo baxrayn oo kale hareeraha waxaa ka xigaa dowlada walaalaheeda oo sacuudi arabiya ka mid ah kuwait baa ka mid ah gadar baa ka mid ah emirateska ka mid ah waa wada qani soo lama socotid iyagoo ay sida ay yihiin oo wada qani yihiin haddana waxaa loo sameeyey iyaga intaaj gaara oo iyaga la siiyo xisas baa la yidhaahdaa intaa waxaa laga siiyaa muxuu ahaa dhowrtaa laga siiyaa dhowrtada ma taqaana af soomaaliga ma taqaanid dhowrtada ka dhoofaysa dalalka aan kuu sheegay shidaalla ka dhoofaya waxna iyadaa la soo mariyaa oo beebkii la dhigay si ay uga hesho dhaqaale oo dadkeeda shaqo abuur magaranaysa ay uga helaan dhowrtana waa la siiyaa yacni xisas iyagu ay leeyihiin oo gaarana waa la siiyaa midda kale dalkii intaa keliya maaha waxa weeye stateka aan waxba haysan warshadaa loo samayn karaa maalgelin baa lagu samayn karaa mashaariic badan baa laga hirgelin karaa yacni waxa weeye waa dadku hadduu isku kalsoon yahay oo walaala yahay oo uu magaranaysaa wax isdhaamo sidii la arki jiro ninka soomaaliga u soo hoyda inuu ka seexdo habeenkaa gabadhiisa lama guursan jirin nin soomaaliya ka seexda gabadhiisa lama guursan jirin haddana waxa weeye soomaali barwaaqada iyo dalka iyo diinta iyo diirka iyo dadnimadeedu waa isku mid qoladii aan ma garanaysaa lahayn resources lahayn inta kalaa ku filan markaynaa jiiliyeelin astaan wadaninimo waa iskaashi gobanimo waa adeeg bulsho sugan waata dhegeystayaal waxaa intaa inoogu dhammaaday barnaamijkii 12aad ee aan uga hadlaynay habraaca federaaleynta soomaaliya waxaana igala qayb galay doctor cabdinuur cilmi qaaje iyo cabdiraxmaan cabdigaas waad ku mahadsantihiin dhegeysiga barnaamijkan waxaa idinla socodsiinayay anigoo ah ayaanle xuseen cabdi barnaamijkanna waxaa soo saaray aamin media limited intaynu dib isku maqli doonno waxaan idinku dhaafayaa ammaano allah وإنسان حق نورها رغم إسلامه والنبض